18252. kusoo dhawaada gacmo furan channelkan haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar si aad ula socoto warbixinada xiisaha leh ee aan soo gudbino maantana kusoo dhawaada warbixin cusub iyo video cusub saddexdan gabdhood ee aad u jeedaan waa saddex gabdhood oo walaalo ah marka sawirka sidaan aad u aragtid waxaa durbadii moodaa in ay yihiin saddex gabdhood oo mataana ah balse waa saddex gabdhood oo kala weyn muddo sanada waxaa lagu kala magacaabaa Maria Angelina iyo Christina saddexdan gabdhood waxa ay u dhasheen dalka Ruushka waxa lagu soo oogay dacwad ah in ay dil bareera ay u geysteen aabahood arintani ayaa waxay amakaag iyo madax xanuun ay ku beertay dadka ku dhaqan dalka Ruushka iyo qof walba sheekadani maqla saddex gabdhood oo aabahood si wada jira u dilay dacwad oogayaasha ayaa waxa ay sheegeen in ay adeegsadeen saddexdan gabdhood basbaas buris iyo sidoo kale mindi saddexdaasi shay ayaa ku cadeynaya in ay gabdhahani dilkaasi geysteen balse su'aasha ka dambaysa ee isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay waa maxay sababta ay u dileen aabahood waxa lagu magacaabayay Mikhail waxa uu ahaa nin aad u dhib badan sidoo kale gabdhahan hooyadii dhashay ayaa warbaahinta u sheegtay in ay isaga tagtay oo ay ka baxsatay Master Mikhail iyo saddexdeeda gabdhood kadib markii ay u dulqaadan weeday Mikhail uu ku hayay jirdil dhanka jinsiga iyo dhibaato fara badan taas oo ay jirto hooyadii oo baxsatay ayaa oday Mikhail waxa uu sameeyay saddexdii gabdhood wuxuu ku soo xiray guri halkaas ayuu ku haystay waxa uu doono ayuu ku sameeyay sidoo doono ayuu u jirdilayay haddaba warbixinta qaar ayaa waxay sheegayaan Mikhail dhanka maskaxiyan in uu wanaagsanayn hadalkii hore ee hooyada gabdhahani ay tiri ayaa ahaa in ay dhowr jeer booliska ay wargelisay laakiin ma jirto cid hadalkeeda meel ka soo qaaday hadii hadalkeeda hore looga soo qaadi lahaa waxay naqalahayd in kiiskani ay soo faragashtaan booliska inta aanan Mikhail la dilin sidoo kalena gabdhaha aanan loo geysanin dhibaatada mid kamid ah qareenada u doodaya gabdhahani ayaa waxa uu sheegay in ay arintani ahayd difaac nafs gabdhahani waxay difaacayeen naftooda ayagoo naftooda badbaadinayo ay dhibkaasi geysteen marka maxkamadda sare waxa uu ka codsaday in kiiska sidaasi lagu soo xiray lagu baabi'iyo balse maxkamadda ayaa diiday waxay yiraahdeen go'aanka inaga ayaa leh laakiin waxaan doonaynaa in gabdhahani cadeen buuxda lagu helo hadii ay ku cadaato in iyagu saddexdooda ay geysteen dilka labada gabdhood ee ugu waaweyn ama ugu da'da weyn waxay muteysan doonaan xabsi ah 20 sano gabdhahaasi ayaa xilliga dacwadaasi lagu qaadayay waxay ahaayeen mid kamid ah under age oo da'da 18 ka way ka hooseeyeen laakiin maxkamadda ayaa sheegtay in kori hoosba ay doonayso cadeen rasmi ah si markaasi loogu qaado kiiska ah in ay dilka aabahood ay geysteen dhacdadan ayaa social media iyo wadamada kale markii ay akhristeen waxay la noqotay mid la yaab leh gabdho oo saddex hadana ah in ay dil wadareed ay u geystaan aabahood waxa ay sheegeen waxa ku kalifay in wax yar aysan ahayn dhacdooyinkan ayaa inta badan waxay ka dhacaan wadamada reer galbeedka sidoo kalena wadanka Mareykanka dhacdooyin ceenkan oo kala ah ayaa marba marka ka dambaysa ay soo ifbaxaya nin oday ah oo gabadhiisa iyo familkiisa dhibaato ku haya marka sheekadan waxay noqonaysaa mid taxana ah oo wadanka kale ay u sii gudbinaya sidoo kale dad iyagu yaqaanay Mr Mikhail ayaa waxa ay sheegeen in uu adeegsan jiray maandooriyaha iyagoo markaas aanan tilmaamin in ay tahay maandooriyaha sida cocaine-ka iyo waxyaabaha lamid ah laakiin waxa uu ahaa nin balwad leh sidoo kalena madaxa loogu jiro marka hooyadii ayaa u adkeysan weeday oo isaga carartay saddexdii gabdhood ayuu guri ku soo xirtay sidoo doon ayuu ka yeelay sheekadan halkaas ay ku soo gabagabeeyeen saddexdii gabdhoodna waxay u kaashteen in basbaas iyo buriskaas iyo mididaas ay ku dilaan qisadan ayaa idin soo gudbiyay waa qisad yar oo gaaban laakiin leh naxtinteeda iyo sidoo kalena maaragtay qisadeeda gooniya marka inta ayaan ku soo koobaya intaan ku kulmi doono warbixinta xigta waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo